السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sheekada qaybtii hore waxay noo joogtay in Hudo habeerteed inay ku dhahday waan soo noqonayaa kadibna ay u tagtay Khalid. haddana waxaan ka sii anbaqadi doonaa qaybteeda xigta. haddaba ka bogshaabun saaxiibayaal intana muuqaalka bilaabin ka hor haddii aad noqoto subscribe haddaad ka mid tahay asxaabta like dhac ku sii si aan u soo badno muuqaalada noocan oo kaleeta siina gaarsii saaxiibadaada mahadsanid. haddaba aynu galno muuqaalkani. Khalid isagoo isla maqan ayay Hudo ku soo jeedisay cod dabacsan. Khalid farxad darteed ayuu la naxay, waxaa madaxa ka foqday qolof weyn. kadib waxay Hudo su'aashay waxaa dadka ka reebay, isagoona jawaabinaya haddana weydiisay dhowr su'aalood. balse Khalid intuu qalbiga iskala hadlay ayuu go'aansaday inuu ujeedkiisa caddeeyo. wuxuuna ku dhahay, walaal Hudo, muddo sanad ahba waxaan rabay inaan kula hadlo balse imaysan suuragelin. hase yeeshee waxaan maanta kuu sheegayaa inaan aad ku jeclahay. waan ogahay inaad waddanka ka dhoofayso. waxaan kale ogahay in reerkiinu doonayaan inay kuu dhisaan wiilka aad qada wadaagaysiin. hase ahaatee waxaan ahay qof si zaa'id ah ku jecel, balse go'aanka adiga iska leh. Hudo waxaa ku duxay hadallada Khalid iyo kalgacaylka uu la hoos joogo. isla markaa Hudo kumaynan degdegin go'aankeeda. waxay Khalid ku soo jeedisay in sheekada dib u dhigo oo uu ka qayb qaato dalxiiska. Khalid waxaa qalbigiisa saaqay dareen farxad, wuxuuna ka ogolaaday inuu dalxiiska ka qayb qaato. Khalid iyo Hudo waa ay wada socdeen socod qabow ayay ku laafiyonayeen, waxayna isweydaarsanayeen kaftan kalgacayl ka muuqdo labadooda. markaasi waxaa ku soo lug darsaday ardaydii mid ka mid ah oo aad ugu qushuucay sida iskugu soo baxeen. markiiba waxaa lala booday sawiro, farxad iyo qosol. raarayinka muuqata markaasi waa mid sayid ah. wiil ka mid ah ardayda ayaa si kaftana u dhahay, dalxiiskiina waxaa aad u nuuriyey Khalid iyo Hudo. inta la qoslay ayay gabar kalena dhahday, wacnaan lahayda hadday lamaano noqdaan waxay tamashalayaanba. waxaa meel gaaban ka soo baxday Hudo habaryarteed iyo wiilkii lala rabay, waxayna dareemeen in labadani xiriir ka dhexeeyo. la soco sheekadani qaybteeda xigta. maanta muuqaalkeena halka ayuu ka gaay. intaanu ku kulmi doono tani muuqaalkeena xiga. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.